goortu ii yarkaad inta casharka bilaabin bal qofkan soo codsaday aan bal mahad celiyo. qofkan waxa la dhahaa Basra Cabdi. mahadsanid walaal noo soo badisay technology-ga protein synthesis soo gali. عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabta iyo dadka kale ku xidhan baa channelkeena casharada caafimaadka waxaad ku soo dhawaataan lesson cusub oo ka hadlaya protein synthesis. samaysanka ay samaysmato proteinka oo waxaa naga soo codsaday ardayda kamida ee ku xidhan channelkeena casharada caafimaadka ayaa naga soo codsaday. ardaygaas ama ardayda kulli magaca ku qoran dee uma garan karo waayo inuu wiil yahay inuu gabadh yahay uma garan karo laakiin wuxuu ahaa qof arday ayuu ahaa marka isaga soo codsaday waxaana cinwaan ku soo codsaday la dhahaa protein synthesis waana cinwaan runtii aad iyo aad muhiim ah. protein synthesis wuxuu ka waramaa waa the process waa hab in which cells unugyadii make protein ay protein u sameysmaan waa habka ay proteinku u sameysmaan taasoo ay sameynayaan unugyaduna sameynayaan. idaa kale wuxuu u dhacaa in two stage laba marxaladood buu dhacaa marka protein la sameynayo. mar waa transcription marna waa translation. bal transcription maxaa tahay? transcription waxaa tahay a process in which from the DNA we make a functional RNA. waa habka from the DNA we make functional waa habka DNA di looga sameynayo functional RNA marka shaqeynaya waa marka one strand kamida DNA di la soo jaro ayaa loo yaqaan RNA process ka timba la sameeyay. RNA di ayaa hab lagu soo jaray ayaa la soo jaray. RNA da hadaba processka hadaba dhacaya ee DNA di la soo jarayo ayaa waxa loo yaqaan transcription baa loo yaqaan. hadaba it can change waxa la bedelayaa one strand of a DNA hal DNA waa la bedelayaa and is convert waxaana loo bedelayaa RNA baa loo bedelayaa. example waxa uu tusaala protein ka tusaala inta ka bacdi RNA di kamis waxay u tagaysaa ribosome-kii to form soo sameeyo protein soo sameeyo. this process habkan ayaa waxa loo yaqaan translation. habkan ayaa markaa waxa loo yaqaan translation. hadaba translation maxaa tahay? translation waa the process waa habka in which the genetic code waa habka genetic codeski ama sirihii ay u akhrinayso in messenger RNA u akhrinayso taasoo sida u sameyso to make a protein sida u sameyso. translation waxa la yiraahdaa waa codeskaasoo messenger RNA di akhrinayso sidii loo sameeyo protein sidii loo sameeyo. hadaba RNA du saddex nooc ay u qaybsamataa. mid la dhaho messenger RNA oo sida loo soo gaabiyo mRNA iyo ribosomal RNA oo loo soo gaabiyo rRNA iyo transfer RNA oo loo soo gaabiyo tRNA. haddaan ku horeyso soo qaadano messenger RNA du copy of gene ay copy gareysaa waa kow. hold the codes waxay qabataa siraha for amino acid leedahay to make cell sameysanto a protein soo sameysmo. ribosomal RNA du itafan waxa laga helaa ribosomka waxaana uu ka caawiyaa ribosomka sidoo uu sameysmo protein soo sameysmo. transfer RNA wuxuu soo transfer gareeyaa ama soo gudbiyaa appropriate amino acid ku filneed ama ku habooneed to the ribosomka for building sidoo u dhiso the protein soo dhiso. protein-kuna saamada ogsoonahayba waa wuxuu salkeenu ku korayo ama ku dhismayo weeye. hadduu salkeenu protein waayo ma korayo waayo carbohydrate kaliya waxa ma kordhiso kaliya waxaan ka helnaa tamar ayun baan ka helnaa. thank you aad bad mahadsantiin sida waxaad ila socoteen. emailkayga kala soo xiriira xudif2019@gmail.com iyo page-keena ku leenahay Facebook-ga ee casharada caafimaadka. wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.